Waxaa maanta masaajidka Bilaal ee magaalada Dolo-Ado ka furmay tartanka Qur'aanka Kariimka. Tartankani oo soo qaban qaabiyay xafiiska Golaha Islaamka degmada Dolo-Ado ayaa saakay waxa uu ka furmay masjidka Bilaal. Haddaba tartankani waxaa noogu warbixinaya culimada. Saako ay tahay maalin sabti ah waxaa noo bilowday tartankii Qur'aanka Kariimka uu hogaaminayo xafiiska Golaha Sare ee Arrimaha Islaamka iyo ganacsatada iskugu jiraan. imtixaankaas oo maaragtay ka kooban 5 qaybood ka kooban 30 juz 20 juz iyo 15 iyo 10 iyo 5 ayaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu maanta inaan bilowno noo gartay. haddana imtixaankii wuu noo socdaa insha Allah wuxuu soo gabagabeyn doonaa haddii Ilaahay ma dhihin maalinta Isniinta horteen insha Allah wixii kale insha Allah in la wadaagi doono insha Allah. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. alxamdulilah maanta waxaa noo bilowday tartanka Qur'aanka Kariimka ee degmada Dolo-Ado oo lagu tartamaya qaybaha kala duwan oo Qur'aanka ah haddii ay tahay 30ka 20ka 10ka iyo 15ka inta lagu tartamay qaybihiis kala duwan ilaa 5 waaxood baa tartanku ka koobnaa. tartankan magaalada Dolo-Ado wuxuu ka bilowday muddo 4 sano ka hor ah. xilliga la bilaabayay maanta farq weyn baa u dhaxeeya. ujeedada laga lahayna waxay ahayd in lagu kabciyo Qur'aanka Kariimka iyo diinta Islaamka kor looga qaado. haddaba waqti xaadirkan xilliga bilowday hadda dhexdooda isbedel weyn ee miro dhal ah ayaa hadda muuqda. xilliga la bilaabay tartanka Qur'aanka ilmaha aad bay qaybta tajwiidka ee qaybta xifdiga bay u hoysay, laakiin maanta isbedel aad u bilaaran Ilaahay looga maxay baan gaarnay. marka insha Allah ta'ala Ilaahi rabbil alamin Ilaahi maadle subhanahu wa ta'ala awalan ayaan u mahadcelinaynaa. maanta oo ah sabti waxaan u bilaawmay tartankii sanadlaha ahaa ee Ramadaan ee Qur'aanka Kariimka ee sanad walba aan qaban jirnay. Ilaahi subhanahu wa ta'ala ayaa mahadis ay u sugnaatay. ardayda ku tartamaysa ilaa ajisa waxay ka kooban yihiin 5 qaybood. أولاً 30 جزء 20 جزء 15 جزء 10 جزء 5 جزء iskugu jiraan insha Allah ta'ala waxa uu soo inuu Ilaahay sanad noogu soo gabagabeeyay rajaynayna maalinta Isniinta quraanka kalaamka Ilaahay in kor loo qaado. waxaa yeelay maxaan kula talinayaa waalidiinta inay macnaha dhalinyarta awlaadda macnaha ay kor u qaadaan ay macnaha insha Allah ay ku dhiirigeliyaan quraanka inay bartaan. macallimiinta soo qalan insha Allah jazaakumullahu khayr aad ba u mahadsantihiin. insha Allah ardayna insha Allah si fiican u dardargeliya quraankan insha Allah wax Ilaahay baray ardaydana bara insha Allah. Assalaamu calaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Tartanka oo ahaa mid ay culimadu ku weydiinayeen su'aalo kitaabka dhexdiisa ah ardaydii ka soo qayb gashay tartanka ayaa u dhacay sida tan. محمد معلم أحمد وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا وصابروا واتقوا الله لعلكم من السماوات والأرض شيئا رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون فلا تظن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا قال ربنا ظلمنا waa Xuseen Indey Dolo-Ado News Media.